wadayaal markan aan idiin soo gudbino madaxweynaha khudbadiisii iyada oo uu ku soo dhoweyn doono maayarka caasimadda Hargeysa Cawl Cilmi Cabdalla. bismillaahi raxmaani raxiim. وحيين مرتبة شرف خليفة عمران كريم وحدثها كمتاعي ومسنا شعبيين الشرف كلماش يسويه يا سلامتي أنا قاعد أتكلم المطلب ده سعدين واحد لقانات عضا أمي وخطأ الشعب صومالي الآن خاصة عاصمتها الجزيرة النواحي يقول أي قوستين إلي ما تحكموا لجنادان أو قبرك يدور يعبر مثل مغرين وجهدين معي تحيي إلا متصور والله بقطع غيره برنامج كاقاتي قلت خالصي وحوالي نمت اليدة والله بقطع وحقوا مقالنا كتروا عن شيء بكراهة ويرمي مجنا الله بينك ويرمي ضد شعب بوحوكوها كان مدحويني إنارين دقيقة كلية كاقها الصامن أوسع رسيا كايسو حالة ملوكسن إينا قصعة جبوتي سنين الكتور كانوا بضاعة كان مري يفرطنا أي شعب كرما تاقينين سبردة تاقين ووعد شعب روح إلى سنية هو كشكية حافظ أمقل سخل وأنا نصع الله وأنا أقنعي حدث والله يجبوتي سوق السوق مقالة شعب الرئيس جبوتي على وحبة ورن ما يوادا ورن لكن واحد سوى جبوتي فورا مجال سلا من كل شيء موضوعي أنا عمرين حتى الشوارع ديالها الجيسة خارباكم مجعابا إذنك سياسيين في المفروض محمد عبد الله كمدا ولا حتى القرآن هو سوته والإسماعيل فكاسدا من كل سنة موضوعي أنا عمرين أي ركعة طويلة أنا على كيف تقول صوفا بليا العربيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين في كل حال وبكل نعمة وبكل حال حولته لنا. waxaan maanta halku idinkaga cudurdaaranaya muddo dheer innagoo aan is-arag oo aanan halkan hadal idinka soo jeedinin maanta oo aan jeclahay inaan si fiican oo dheer arrimo badan wax idinkaga sheego qorraxdina maanta aad iyo aad inoogu kulushahay
waxaan doonayaa inaad raalli iga ahaataan dhaqsaan u maraya wixii aan idiin soo qoray inaad iga raalli ahaataan oo ku sabirtaan midicda iyo kulaylka aad taagantihiin waxaan u horraysiinayaa erayada aan halkan ka soo jeedinayo eray aan u jeedinayo niman Soomaaliyeed oo walaaladeena oo aynu mar isku dal ahaan jiray oo maanta Jabuuti ku shiraya oo dantooda ka shiraya oo la jecel yahay ama lagu dadaalayo in laga raadiyo inaynu heshiiskooda iyo wanaagooda iyo waxqabsigooda aynaan raalli ka ahaynaynu hortaaganahay arrinkaas oo laga raadiyo daraadii waxaan jecelahay maanta ereygayga u horreeya inaan nimankaas u jeediyo waxaan nimankaa ku leeyahay 10 sano ayuu dalkiinni baaba ahaa dadkiinniina isku foognaa oo aad dhiiggiinnii iyo dhaciinnii xalaasatay qoys iyo reer aanay dhibtaa ay isu gaysateen aanay guriga ugu gelini ma jirto ama waa fara ku tiris haddii ay jirtoba fara ku tiris aad u yar weeyaan haddii ay jirtoba cidaanay guriga ugu gelin balaayada ay isu dhigteen maanta cid ama qolo ama koox run ahaan odhan karta faa'iidaanu ka gaadnay colaadii iyo dhicii iyo dhibtii ma jirto ayana ma jirto waa laga yaabaa inay cidi ismoodo inay wax u kordheen runse ma ah oo cid wax u kordheen ma jirto waatuu cali taama ka gabyaaye ee uu yidhi mataan aanad lahayn lama qoto oo waa mas'alo dhaafe markay miirtu kuu dagan tahay ayaa maalin la cabaaye ogoobay madada kii jabshay ayaa midigta kaa yaali booli raandiis ma yeedho wali nimankii baa hadalkaygu u jeeda nimankii Jabuuti ku jiraayey ayuu hadalkaygu weli u jeeda booli raandiis ma yeedho nin ciil qabana lagama adkaano waa ogtihiin waana arkaysaa nimanka tuutsi la yidhaaho tutsi nimanka la yidhaaho iyo nimanka huutu la yidhaaho waxa kala haysta arrintood waxay noqotay lugtanay marba ninku qaadi marba qolaa gacanta la baxaysa oo xasuuq bilaabaysa si ay qolada kale u mariyaan waa arkaysaan oo cid maratay ma jirto qolo gacanta taagtay oo tiri waa nalaga adkaadayna ma jirto waxay arrintoodii noqotay meerto guuldarro ah oo ninba waa mare musma kula koro haddaan ilaahay kala qabanina ilaa yowmal qiyaamaha sidaasaa marba qolo jabcada lagula fogayay dadkaasi idinla mid ma ah haddii aad tihiin reer Soomaaliya isku diin ma aha isku dhaqan ma aha isku af ma aha isma geeyaan oo ma kala guursadaan idinku waxaad tihiin dad walaalo ah oo iswada dhalay oo ay xurmo iyo xididnimo iyo xaajo weligood ka dhaxayn jirto bulshada caalamka iyada oo asraar gaarihii jirtay jiriyadow maanta la jiri karto iyadoo ay bulshadu
bulshada caalamka ah u aqoon daran tahay dhaqanka Soomaaliyeed haddana waxay bulshadaas isu aragtaa inaanay waxba kala harin siday Soomaaliya u taageeri lahayd dadkeedana u kala badbaadin lahayd dawladda iyo dal kale ay dib ugu dhisi lahayd sidaa daraaddeed alla kama dhiga hadduu shirkaa maantu guuldarraysto ma ay hawl yaraan doonto inay bulshada caalamku mar labaad mar kale Soomaali u danqato oo u dawado dad loo yaqaano aqoonyahan oo ka faallooda siyaasadda caalamka ayaa qaarkood leeyihiin xubnaha shirka Jabuuti isugu yimid cid koo diratay ma jirto Soomaaliyana uma hadli karaan waxna uma guddoomin karaan anigu ra'yigayga qof ahaan waxaan u arkaa taas erey beena ayaan u arkaa boqolkii qof ee Soomaali ah ee wadani ah ee wada tashan kara ee u wada tashan kara dadkooda iyo dalkooda way u guddoomin karaan shardiga qura ee loo baahan yahay inuu ka muuqdo ficilkooda waxa weeye in dan caama inay wadaan oo ay dadka iyo dalkaba u naseex yihiin oo aanay cidna ka eexanayn Soomaali aafada 10 sano haysatay qof walba ama ha yaraado ama ha weynaado meel kasta ha jooga waa garanayaa siday aafadaas Soomaali ugu tiri siday uga baxdana si ay uga bixi kartana qof waliba ra'yigu ka qabaa si kasta haddii laaxi wada ee taladu meel aanay ku jirin u jeedisa waa la wada arki doonaa waxaanu idinku ducaynaynaa in ilaahay dantiina idinku hanuuniyo oo aad noqotaan duqay iyo dad la mahadiyo inaad noqotaan erey kalena waxaan rajaynayaa waxaan u jeedinayaa dawladda Jabuuti ama rajiinada maanta Jabuuti ka tahay waxaan leeyahay lagi idinka horreeyay niyadami badani nooma dhaxaynin labada geesoodbana daliili waa jirti waana jiri doontaa waxaase noo dhaxeeyey waxay carabtu ku tilmaanto jinkii Macaawiye ayaa noo dhaxeeyey oo ay Soomaaliduna kaga maahmaado kala go ayay dhaartaa ayay Soomaaliduna kaga maahmaado ayadoo rasiimadan maanta joogtaa si wanaagsan weli u gujirsan labadii dalna waa kala go'an yihiin labadii dalna
وكلا فريد waxay tidaahaa Soomaalidu karis xun iyana ku halaabaysa waanaynu arki doonaa ismaroorinta maanta waa si jaamac gacanlow ismaroorinta maanta hadda mahadisana waa la arki doonaa waxaan se sheegayaa ragga leh sanduulaanu Somaliland waxaanu rabno ku yeelsiinaynaa waxaan raggaa ku leeyahay xidigaha cirkaygaa ku beeray ee ka wirwidh leh ayaa idinka dhow inaad Somaliland u talisaan oo waxaanay raalli ka ahayn yirkusa waxaan leeyahay raggaasi ha noqonnina walaalayaalow ha noqonnina kaneecadii maroodiga ku tidhi maroodiow waan kaa duuduulayaa ee isadkee yaa duucine ha noqonnina tobankii sano ee Somaliland soo jirtay meelo badan ayaa laga colaadiyey oo aan waxba loola hadhin Butras Qaali UNICEF walaalaha iyo carab badankooda walaalaha iyo carbeed badankooda iyo ummado kale oo aanan halkan ku magacaabaynin annaga oo hadda isafgarannay kulligood waxay ku dadaaleen inay Somaliland saaraan dabool ayana dabool iyana ciifiya inay Somaliland saaraan dabool iyana ciifiya caalamkana ka qariya waa annagaasoo weli waa soo taagan weliba waa soo taaganahay sidii uu Cabdigahayru yidhi weligayba meel lagu jabay ayaan la weynaayey ilaahay jecela siduu jiray arwaxayga waxaan kelmaddaa ku wajahan dowladda Jabuuti ku soo gunaanadaya waxaanu raadiyayaasha ka maqalnay waxaa shirka ka qabanqaabinaysaan wafdi noo yimaada oo shirka na keeno hadduu wafdigaasi ka kooban yahay xubno reer Soomaaliya ah oo shirka ka socda waanu soo dhaweynayna wafdigaas laakiin soo raaci mayno ee waanu u soo warramaynaa oo runta maanta ka daran ayaanu daboolka uga soo qaadayna warkaas ka bacdi ma laga yaabaa walaaladayo in wafdiga intiisa badan idinku soo noqon ay guryahoodii ku noqdaan ma laga yaabaa هذا كفر dadkaasi waa dad walaala oo ay dan badani ka dhaxay oo aan u baahnayn fidno laga dhex abuuro intaasaan dawladda Jabuutina ereygaa u jeedinayay u soo gunaanadaas waxaan ku leeyahay inaan wax idinka sheego haddaba